Somaliland ayaa ku haafatay hirdanka diblomaasiyadeed ee ka socda geeska. Dowladda Itoobiya ayaa doonaysa inay Somaliland aqoonsato iyada oo heshiiskii safgaradna loo bedelayo mid rasmi ah. balse waxaa ka soo horjeeda oo halis ku ah diidmada xulufada Djibouti, Kenya iyo Soomaaliya. Imaaraadka Carabta ayaa si weyn uga xanaaqay sida ila wareedyo diblomaasiyadeed sheegayaan. safarkii madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu ku tegay waddanka Djibouti waxaana ilaa iyo haatan iska soo daba dhacaya tallaabooyinka iska hor imanaya ee dhalinaya jahwareerka diblomaasiyadeed. safarka Kenya ee wafdiga madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu hogaaminayo ayaa isaguna diblomaasiyad ahaan noqonaya mid aan ka farxinin dowladda Itoobiya. haddaba maxay Somaliland u horseedi karaan isjiidooyinka geeska ku gadaaman iyo diblomaasiyadda aamusan? ma khasab baa Somaliland inay cid walba raali geliso aqoonsi caalami ah si halkee ayay ka heli kartaa? isweydiinahan diblomaasiyadeed iyo xogihii ugu dambeeyay ayaynu ku falaqaynaynaa tebinteenan. dariiqa diblomaasiyadeed ee Somaliland ay haysato ayaa laga dayrinaya, kaasi oo ah mid doonaya inuu cid walba raali geliyo. raadka uu sameeyay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ee diblomaasiyadeed ayaa gadaalkii hore guulo wax ku ool ka keenay tallaabooyin uu qaaday. balse haatan waxaa jira isjiidooyin badan oo ay Somaliland ku lumin karayso jaanisiyadda habiya oo diblomaasiyadeed. leerayaasha falaqeeya arrimaha siyaasadda ayaa warinaya Somaliland inay haysato fursaddii ugu wanaagsanayd 34 sannadood oo ay aqoonsi raadinaysay oo maanta ugu dhow yahay. balse hufid iyo jahabaabid diblomaasiyadeed ayaa noqonaysa mid lagu waayo hadafka soo taxnaa muddada intaasi leeg ee loo soo dhabaraadeegayay. deeliga in laga ilaaliyo dhoomaha diblomaasiyadeed ee isu dhigma ayaa noqonaysa mid guul taariikhiga Somaliland u soo hoysay. madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo xukuumaddiisa ayaa adeegsanaya diblomaasiyadda aamusan, taasi oo aan cidnaba loo cadaynaynin rabitaanka iyo rabitaan la'aanta. sida oo kalena lagu dadaalayo in cid walba la raali geliyo, cidna aan lala culoobin ee cid walba loo qoslo, taasi oo aan ka jirin dunida maanta aynu joogno. waana ficilo iyo qorshe diblomaasiyadda si weyn uga soo horjeeda oo aanay ku shaqaynin marka loo eego danaha ay Somaliland leedahay. xulufadeeda iyo xagga ay ka xigaanba si toos ah ayaa loo garanayaa, looguna tilmaami karaa diblomaasiyad ahaan. iskumana wadi karto Somaliland dhinacyada isdiidan ee jaaniskeeda ayaa ku dhex lumaya haddii ay dadaal ku bixiso diblomaasiyadda aamusan inay isugu dhex wado iyadoo aanay jirin duni lala wada heshiiya haatan. balse loo baahan yahay hadafkaaga iyo mowqifkaagu inuu cadaado, sida oo kalena aad ku tiirsanaato xulufo la yaqaan. dowladda Itoobiya ayaa boorka dib uga jabtay heshiiskii Somaliland, kaasi oo haatan ila wareedyada diblomaasiyadeed ay sheegayaan inay diyaar u tahay heshiiskaasi sidii loogu bedeli lahaa mid rasmi ah iyadoo la diyaara aqoonsigii. Itoobiya waxa ay xaagan wadaag la tahay wadamada Imaaraadka iyo Mareykanka, sida oo kale UK iyo wadamada reer galbeedka. kuwanina waa cudud diblomaasiyadeed oo lagu tiirsanaan karo marka loo eego duufaanada haatan gilgilay geeska ee diblomaasiyadeed. safarka Kenya iyo kan Djibouti oo ahaa laba safar oo isku xijiyay madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ayaa xeeldheerayaasha diblomaasiyadda falaqeeya ay sheegayaan inaanay Somaliland waxba uga soo kordhaynin haddii aanayba wax ku waayin oo wadamada ay haatan xulufada la tahay aanay si weyn uga soo horjeesan ficiladaasi. waxaana ay khubarada diblomaasiyadda geeska iyo adduunkaba si weyn ugu talinayaan in la raaco raadkii hore ee diblomaasiyadda Somaliland, kaasi oo xulufo la ahaa Itoobiya, Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta. waana dariiqa saxda ah ee lagu rumayn karayo riyada shacabka soo samreeyay 34 sannadood in ka badan. balse wadadii kale ee la maraaba waxa ay luminaysaa jaaniska dahabiga ah ee ay Somaliland haysato 2025. raaligelinta reeraha deriskeena waxa ka muhiimsan rumaynta riyadaha aynu soo lahayn 34 sannadood ee ugu dambeeyay, taasi oo ah Somaliland inay hesho aqoonsi caalami ah.